السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة channel قماشي إن شاء الله تعالى ما توحين موضوعنا كجهد الضنا عالم قيمة بدن أو كمدة علماء الإسلام مجيء سنة وحلورين شري محمد بن موسى الخوارزمي وحوها عالم حسابات كي علم فلك بآدو يقانا الضبوحة ودشي محمد الخوارزمي بقوليا فريق لحظن كي تريدا أو وافقسان بقوليا كويس تيتن كي ميلادية الضبوحة قاد تاريخ ذا ميلادية أظن مالا بدن وبسادية بدن واحد كلا اسمه خلافسن أو حنركي وبسادية qaar qoriya saalim heedin sheegay 780 iyo qaar kale qoriya 780 hatta adoo taariikhda hijriga mooyee taariikhda milaadiga way yar khalfasanta adoo iyo midba taariikh gooniyo qoriya marka adoo hijrigaas un baa sax waxa lagu tiriyaa caalimka muslimka culimadii islaamka ahayd ee ugu horeysay ee xisaabta meelaha ugu sareysay ka gaaray jeera uu kamid ahaa culimadii ugu horeysay ee sahaminta aadka u ballaaran ku sameysay xisaabta si ay heerkan ay maanta taagan tahay ay u soo gaadho haddaba caalimka muslimka waxa uu xiriir lahaa khaliifkii dawladii Cabbaasiyiinta ee la oran jiray al-Ma'mun xaggaas oo uu ka shaqeeyay goobtii cilmi baariseed ee ay dawladda islaamku lahayd ee la oran jiray Baytul Hikma haddii aanad hore u maqal waxa weeyaan goobtii ugu horeysay ee cilmi baariseed ee ay dawladda islaamku yeelato waxaana aasaasahayga ahaa oo aasaasay goobtaas khaliifkii Cabbaasiga ahaa ee la oran jiray Haaruun ar-Rashiid qarnigii 8aad ee milaadiga makaanad u khaas ah ku lahayd culimada islaamka waxaanay caan soo noqotay oo ay caalamka oo dhan ku baahday waqtigii uu xukumayay inankiisii al-Ma'mun haddaba caalimka islaamka ahaa ee la oran jiray Maxamed al-Khawaarismi waxqabadidiisii ugu caansanaa waxaa ka mid ahaa in uu turjumay oo uu luqadda Carabiga u bedelay buugaag fara badan oo af-qalaad ku qornaa iyo cilmi baaris ballaaran oo uu ku sameeyay sayniska iyo falsafadda waxa kale oo waxqabadidiisii ka mid ahaa in uu qoray buugaag fara badan oo xisaabta ka hadlaya kuwaas oo ay ugu muhiimsanaayeen buugga xisaabta aljabrada iyo buugga kale la yiraahdo al-Muqaabala kuwaas oo kusoo bandhigay sida loo xaliyo isleegyada toosan iyo kuwa fargeeska ah waxa kale oo intaas u sii dheer inuu qoray buug la yiraahdo al-Xisaab bil arqam al-Hindiya oo Ingiriisina ku noqonaya arithmetic in Indian numbers buugaas oo inta badan mas'uul ka ahaa inay lambaradii Hindiyaanka ah ay u soo gudbaan bariga dhexe inta kadibna Yurub bay u sii gudbeen waxaana loo turjumay buugaagtiisii luqadda Laatiinka iyada oo loo bixiyay algorithm si ay isaga ugu nisbeeyaan algorithm waxay ka soo qaadeen al-Khawaarismi waxa kale oo uu Maxamed al-Khawaarismi u isticmaalay xisaabta aljabrada si uu u xaliyo dhibaatooyinka dhaxalka iyo siyaabaha loo qaybiyo welibana si waafaqsan shariicada islaamka haddaba intaa kadib waxqabadiyadiisii caanka ahaa waxaa ka mid ahaa inuu aasaasay kitaabkii la odhan jiray suuratul ard oo macnaheedu yahay sawirka dhulka buuggaas oo qoraalkiisa si fiican ugu muujiyay goobo kamid ah Aasiya iyo Afrika iyo meelaha ku teedsan badda Mediterranean-ka waxa kale oo waxqabadiyadiisii kamid ahaa inuu khariidada caalamka u sameeyay khaliifkii al-Ma'mun isla markaana uu kala qayb qaatay mashruuca lagu ogaanayo wareegga dhulka waxa oo uu soo bandhigay intii uu noolaa jaantusyada xidigiska isaga oo ka soo xigtay ilo Hindiyaan iyo Greek bay isugu jira noloshii Maxamed al-Khawaarismi haddeen wax yar ka taataabano waxa ay ka soo guureen qoyskiisu magaalada Khawaarism ee ku taala gobolka Islaamiga ah ee Khurasan imika magaaladaas waxa la yiraahdaa Khiwa waxaanay ku taala Jamhuuriyadda Uzbekistan waxaanay u soo guureen magaalada Baghdad Maxamed al-Khawaarismi waxa uu cilmi baaristiisii ugu badneyd sameeyay intii u dhaxaysay 813 ilaa 833 milaadiga isaga oo ku sugan guriga al-Hikma ee Baghdad ku yaala isla waqtiga gudihiisa waxa uu khaliifkii islaamka ahaa ee dawladda Cabbaasiyiinta haystay ee la oran jiray al-Ma'mun uu madax uga dhigay Maxamed al-Khawaarismi maktabadiisii khaaska ahayd ee buugaagta waxaana uu u wakiishay ururinta iyo turjumaadda buugaagta Greek ah haddaba Maxamed al-Khawaarismina waxa uu ka faa'iideystay jaaniska oo buugaagtii ku jirtay khasnadii al-Ma'mun ayuu akhriyay oo uu daraasad ku sameeyay waxaana uu si fiican uga bartay xisaabta juqraafiga xidigiska iyo taariikhda waxaana intaas u sii dheeraa aqoontiisa uu u leeyahay Greega iyo Hindiga haddaba Maxamed al-Khawaarismi waxa uu dhammaan cilmi baarisihiisii oo dhan uu ku qoray luqadda Carabiga taas oo ahayd waayaha luqadda aqoonta inkastoo asal ahaanta iyo barta uu ka soo jeedo caalimka muslimka ah la isku khilaafay oo ay qoloba dhinac ula weecatay laakiin waxa uu ahaa caalim muslim ah oo ay aqoontiisu ilaa iyo hadda ay nooshahay caalamkana wax fara badan ku soo kordhiyay ugu dambeyntii inkastoo aynu maanta in yaroo naqan ka taataabanay taariikhdii facweyneed ee uu lahaa aqoonyahankii islaamka ahaa ee la oran jiray Maxamed al-Khawaarismi laakiin xagga ku joojinayna insha Allah ta'ala wuxuu Ilaahay nooga qadaro maalinba in baynu ka soo qaadan doonaa taariikhdii ay lahaayeen culimadii islaamkeenu iyo dhacdooyinkii aadka u tirada badnaa ee dhacay qarniyadiina dhaafay
waayahay haddaba maanta mawduucana bartaasaan ku joojin doonaa tan iyo intaynu muuqaal dambe ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.